annagoo hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland matalaya xagga barnaamijka taakuleynta dadka danyarta ah waxaan la joogaa markas Malik Salmaan liqaasa Cumaan Isaaniye wafdigoodii oo maanta nala bilaabaya barnaamijkii raashin qaybinta 30,000 qoys oo lagu qaybin doono insha Allah tacaala Soomaaliland oo dhan xagan aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa wafdigan nala jooga Ustaad Cabdallah Sageeraan iyo kooxiisa nala joogta iyo waxaan aad ugu mahadcelinayaa mas'uuliyiinta Natfor ugu horeeyo maareeyaha Faisal Ali Sheikh Maxamed sida habsamada ay u gaarsiinayaan danyarta ah ee jooga gobollada Soomaaliland oo iyagu ka shidaal qaadanaya shaxdii ama qorshihii soo dhigeen gudida abaaraha heer qaran Soomaaliland weeyaan sida ogeedeen sanadkii horeba waan qaybinay 4 jeer sanadkanna markas Malik Salmaan barnaamijku wado waxaan marayaa waa marxaladii saddexaad oo barnaamijkan sanadkii hore 2 marxaladood bay ahayd sanadkan waqti saddexaad waxay ugu talagaleen dadka tabaaleysan ee abaaruhu saameeyeen ilaahay waxaan ka rajeynayaa dadka muxsiniinta ah walaaladeen Sacuudiga soo bixiyay raashimada danyarta gaadho iyagana miisaanka xasanaadka ilaahay ugu daro mas'uuliyiinta goobta joogana waan aad baan u salaamayaa ugu mahadcelinayaa sida habsamada ee nala shaqeeyeen ee noo fududeeyeen shaqadan Caawi Maxamed Ciise kiisan digin waan u mahadnaqayaa diinad baan marka wayna caawisay Allaha caawiyo maalinta Ramadaantii waan kaga baxayna way mahadsanyihiin khayr baan rajaynayna annagana khayr noo rajeeyay Safiya Xasan Umar kuwa noo keenay iyo kuwa nasiiyaba mahad baan ugu naqaynaa waanu mahad celinayna ilaahay baan ka gudoonay dawladda iyo dadka iyo ragga noo keenay ba Allah salaam bay leeyihiin ka fiican xuska iyo salaanta dawladda iyo dadweynaha meesha joogaan mahad buu inaga naqayaa si fiican buu idin salaamaya annaguna waan idinka gudoonay aad iyo aad